السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الكريم سو دوادا دمانتين ميل كستا واد عالم كجوجتين إن شاء الله وكوتش مهد مدو وايهم بوان كلا مقنين وحان نكون مقنا مشغول iyo markaas arrimo shaqo laakiin hadda ayaan markaas video cusub iyo markaas waqtigiisi waliba ku haboona ayaan markaa idin soo gelinaya insha Allah binidaar videogan wuxuu ku saabsan yahay ama kilibkeenu ramadaanka iyo Herbalife iyo meal planka aad heli kartiin idinkoo markaas gaaraya hadafyadiinii tusaale ahaan dadka inta badan boqolkiiba 80 waxay aad iyo aad markaas u daneeyaan inay markaas miisaan dhimaan oo kale hadaba Ramadan meal plan waxay ka caawinaysaa inaad horta hesho nutritionkii aad u baahneed inaad hesho bisha Ramadan inaad goolkaagii hadafkaagii gaarto wuxuu raba ha noqdo iyo inaad cibaadadaadii laftirkeeda aad markaas waqti u hesho ama aad chance u hesho ay ka caawinaysaa ama ku fududeynaya meal planka macnaha Herbalife nutrition laba sano oo la soo dhaafay waxaan ku afurayay ama aan ku suxuuranayay meal planka Herbalife Ramadan xaqiiqatan aad iyo aad ay markaa i caawisay wax badanna waan ka faa'iiday dad badanna ayaguna saas oo kale ayaguna waxbay ka faa'iideen aan inaba aan caadihin la soo koobi karin halkan hadaba bisha Ramadan waa bil cibaado marka bil cunto maahan laakiin anagu bil cagsi bil cuntaan ka dhignay sababtuna waxay tahay wuxuu qofku soomayaa saacado badan 20 saacadood 18 saacadood 16 saacadood ayuu soomayaa dadkii way shaqeynayaan shaqooyin adag ay ka shaqeeyaan oo noocyo kala duwan leh marka qofkii waxa weeye wuxuu u baahan yahay energy fiican inuu maalintiisii helo taag bedelkeeda habeenkiina aad buu u yar yahay waa 3 saacadood inta wax la afuran yahay ama waa 4 saacadood qaar bayba 2 saacadood ku tahay haddaba marka waxaan idin haynaa marka xal aad iyo aad u wanaagsan oo hadduu qofkii tijaabiya oo nooga mahdi doono ama markaas nagu dhihi doono aad iyo aad markaa u mahadsantihiin maadaama aad programkan ama aad qorshahan noo samayseen maxay ilaa anigu waan ku soo faa'iiday 2 sano hadda la soo dhaafay 2017 iyo 18 iyo 19 oo hadda lagu jiro insha Allah maalmo yar naga ramadaankii naga xigo una diyaar garoobayno dhamaanteen insha Allah haddaba waxaad u baahan tahay marka inaad markaas afur yaro fudud oo nafaqo ah oo jirkaagi markaas nafaqo gelinaya energy-na siinaya inaad hesho adoo marka cunaya cuntooyin nutrition ama nafaqo ah dhadhankooduna marka aad u macaan yahay oo ka heli doontiin insha Allah intiinaan hore u aqoonin intii taqaana way taqaanaa suxuurta inaad markaas aadi karto taraawiixdaadii inaad markaas aadi karto adigoo afuray oo de calooshaadina aan buuxinin inaad markaas soo taraawiixdaadii soo tuka karto soo laaba karto adoo markaas wax cuni kara aad markaa casho yaro healthy haddana aad isticmaasho iyadana aan kaala shaqeynayno iyo suxuurtii oo markaas aad iyaduna markaas wax yaro markaa nafaqo ah oo nutrition aad markaa ku suxuuranayso haddaba waxa jirta cagsigeeda marka qaabkan uu tusaahan u soo afuri jiray oo kale berigii hore horta anigu bishan Ramadan ma garanayo dad badan kulli inay ila mid yihiin laga yaabaa laakiin waxaan ahaa jiray anigu dadka inta badan Ramadaanka miisaanku ku kordho sababta waxa keenaysana waxay ahayd Ramadaanka in miisaankaygu kordho horta saacadihii oo badan san idin sii shoogay iyo waqtigii oo yar habeenka ayaa waxa sameey jiray afurkan wax badan cuni jiray sida sambuuska ama maaragta suqaar ha noqoto ama canjeelo ha noqoto ama waxyaabo carbohydrate badan ama calorieskiisu ha yahay marka waxa dhici jiray in caloosha markaas ay aad u buuxsanto kadibna aan hadana israahdo berri gaaja jirta oo hadana aad wax badan cunto suxuur cunto waxa marka waxaan dareemi jiray laab dilaac badan de maalintiina wax gooniya oo energy oo aan heli jiray berigi hore ma jirin marka bishii aniga 5 kiilo ilaa 6 kiilo ayaa igu kordhi jirtay sababtuna waxay tahay qofkii 3 saacadood muddo u dhaxaysa gudaheed ayuu cunto badan ku cunay uuna ku seexday okay marka cuntadii automatic waxa weeye jirkii bay marka ay galaysaa oo waxa weeye qofkii bay marka ka soo baxaysaa marka waxay imanayaan marka inay calooshu aad ku weynaato waxyaabo badan ku dhaca laab dilaac badan cuntooyinkan cunaynana inta badan ay yihiin hilib iyo maaragta sambuuse oo saliid lagu sameeyay iyo malawax iyo waxyaabaha canjeelo wax culus adugu ay dadkii cunayaan ay aad ula qabsadeen haddaba muhiimaddu waxay tahay marka
labadii sano lasoo dhaafay aad baan uga raystay. marka koowaad waxaan helay energy fiican oo aanan heli jirin berigii horon cuntadan xataa iska buuxinayay. xaqiiqatan waxaan helay markaa xataa miisaankaygu inuu hoos u dhaco oo dee miisaan dhimis aan helo ayaan helay oo aanan heli jirin berigii hore halka miisaan igu kordhi jiray. waxaan helay haddaba maanta waxaasoo dhan waa isbedeleen. sababtuna waxay tahay qofku hadduu cuntadiisa uu markaas waxyaabaha nuxur kale ama faa'iidada ama nafaqada lana uu ka isticmaalo, waxyaabaha markaa dheeriga ku ahna uu qofku iska joojiyo stop iska yiraahdo, noloshiisa wuxuu gaarayaa inuu u noolaado sida uu jecel yahay iyo hadafkiisa inuu gaaro ama lifestyle ku jecel yahay ku noolaado. haddaba waxay tahay bishan maadaama 12 bilood aan cunto soo cunaynay, bishanuna tahay bil cibaado, cibaadadeennii marka inaan cunto naga hor istaagto ama inta cunto cunno aan ama salaadii aadi weyno ama aan dee cuntadii aan cunnaba aan culays iyo maaragtaa laabdilaac ka qaadno ma fiicna. hadda tusaale ahaan dadku inta badan waxay sameeyaan afurkay aad cunto culus u cunaan. sida tusaale ahaan cuntooyinka ay cunaan waxaa ka mid ah sida cuntadan hadda aad arkaysa sidoo kale ka mid ah, waad u jeediin. saasoo sax maahan, sunnana ma ahan, caafimaadkana ma waafaqsana. marka waxaad samayn kartaa inaad markaa cunto healthiya oo caafimaada inaad cunto sida cuntooyinkan oo kale inaad isticmaali karto adoo markaas helaya qof coacha oo kaa caawinaya balaankii iyo qorshihii ku habboonaa. iminka tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay, ramadaanka lasoo dhaafay, dad badan oo waxa weeye hooyooyin Soomaaliyeed u badan ayaa markaas waxa weeye ka faa'iidaystay meal planka Herbalife. maadaama qofkii uu ramadaanka u baahan yahay oo tahayna waqtiga ugu baahida badan yahay nutrition ama nafaqo inuu helo. marka dad badan waxay sameeyeen inay ka faa'iidaystaan oo markaa miisaan badan xataa ka dhaco oo ay kaga faa'iidaysteen. waxa kale oo kaaga sii wanaagsan waxay tahay qofkii inuusan u baahnayn inuu markaas uu maanta dhan jiko ku jiro oo ilaa iyo casirkii ilaa inta laga afurayo inta badan hooyooyinku jikadii ku jiraan, oo waxaasoo dhan marka uma baahanaysid qofku markuu isticmaalayo baradhagtiga meal planka Herbalife ee ramadaanka. markay ka dhiman tahay 20 minute afurkii ayaad u baahan tahay inaad markaas aad waxaaga yaraa isku habaysato. xaqiiqatan waad ka heli doontiin, waadna ku qanci doontiin insha Allah biidnillah. waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo caalamka ka joogaan inta heli karta maanta coachingkeena awoodi kara maanta inay bisha Ramadaan wax way kaga faa'iidaystaan. waxaa laga yaabaa waqti dheer inaad markaas ku soo afuraysay sambuuse iyo laxoox iyo markaas hilib iyo bariis iyo basto, waxyaabahaas ku soo afuraysay ayaa laga yaabaa waqti dheer. haddaba maantay aamin annaga nala tijaabi meal plankan aan kuu hayno, cuntadan healthiga ama nutritionka ama nafaqada markaa kuu hayno, weliba plus uu kuu sii yahay markaa coachingii iyo caawintii aad u baahneed. waadna markaas arki doontiin resultiga 1 month gudihiisa insha Allah. haddaba adoo kaga faa'iidaysanaya hadafkaagii maanta waxa weeye intii miisaan kugu kordhi lahaa ama aad caafimaadkaaga xataa waxa weeye aad halis geli lahayd ama cibaadadaadii aad maanta ka mashquuli lahayd, maanta ku soo dhawow nutritionkaas iyo markaas waxyaabahaas aan idinkula talinayno. dabcan san hore inkugu soo sheegaba sanadkan aniga ii saddex insha Allah xaqiiqatan aad iyo aadan ugu raystay ugu faa'iiday, jirkayguna u helay nafaqada u baahnaa. waxaana maalin kasta heli jiray energy ugu filan, waxaana la adimi jiray anigoo waxa weeye sii soomanaa kara oo awood sii haya. sababta waxay tahay jirkanu uma baahna cunto lagu kiiso iyo carbohydrate iyo calories iyo cunto aan nutrition lahayn uma baahna, laakiin jirkan wuxuu u baahan yahay only wax balance ah nafaqo. jirkana waxa uu quudanaya waxay tahay oo waxyaabaha asoo markaas uu u baahan yahay. xibin kastoo jirka kamida waxbay rabtaa. marka haddaad only aad ku guraysa ka waran marka waxyaabo carbohydrate hel macnaha bad carbohydrate calories sokor macmacaan hilib wixii asa ugu gurayso, marka jirkii waxa weeye rarkana waad ka badisay, nafaqana moo helinin, adigana markaas waxa weeye jawaab xun kugu soo celinaya marka ramadaanka. haddaba insha Allah mar raba fiidiyoga aan ku dheereeyo ka faa'iideysta. haddii marka aad doonayso marka 96 wadana coachingkeenu ka shaqeeya YouTube-ka ayaad markaad YouTube-kayga ku arki doontaa. waan ka soo hadlay fiidiyo badan oo soo duubay
waxaa ku qoran macnaha wadamada Herbalife ka shaqeyso videogaasaan ku sharaxay wadamada ay ka shaqeyso ilaa 96 wadan. haddaad marka wadamadaas ku nooshahay coachingka waan kuu samaynaynaa saacad kasta iyo waqti kasta ay kuu tahay iisoo qor message iisoo sheeg magacaagii meeshaad joogtay hadafkaaga wuxuu yahay inta aan la gaarin bisha Ramadaanna insha Allah waxaan kula samaynayaa orderkaagii aad bisha Ramadaan aad ku moodi lahayd insha Allah biidnillaahi kariim waadna ku faa'iidi doontaa ciidana insha Allah ayaad ogaa doontaa markaa resultiga iyo markaa isbedelka halka dad badan ay markaas ay ku soomi doonaan waxyaabihii markii hore ay ku soomi jireen laakiin adigu xataa waad ka duwan tahay marka aad baan idiin salaamayaa muuqaalkaasaan idinku talagalay ku saabsan Ramadaanka iyo meal planka insha Allah ka faa'iideysta contactina nala soo sameeya si aan inkaga caawino aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynayaa dadka channelkayga ku cusub waxaan soo dhaweynayaa kuwii hore dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkan u sii gudbiya walaalihiina kale laga yaabo inay markaa dad badan ka faa'iideystaan laga yaabo inay anfacdo laga yaabo inay bisha Ramadaan waxa weeye dad badan ay goolashoodii gaaraan ama ay maaragtay fursadan ka maqneed ay helaan marka intaan ku kulmayno insha Allah muuqaalka xiga waa Coach Mahad oo idin leh salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Ramadaan kariim